anagoo ah xildhibaanadii 116 ahaa ee 30 bishii sideedaad 2015 ku soo gudbiyay soo jeedintii ka dhanka ahayd mooshinkii iyo eedaymihii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii aan aragnay sharci ahaan inuu buran yahay mooshinka ay soo gudbiyeen xildhibaanada saaxiibadeena sababaha soo socda qodobada lagu soo eedeeyay madaxweynaha oo aan ahayn qodobo sharciye ee ah qodobo siyaasadeed taasoo ka soo horjeeda qodobada lagu eedayn karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 19 faqradiisa koowaad ee dastuurka sida kumeel gaarka loo ansixiyay ee Soomaaliya ee qeexaya in madaxweynaha lagu soo eedayn karo oo keliya khiyaano qaran xadgudub culus oo dastuuri ah ama ku xadgudub sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya eedayntaasi way xadidan tahay dastuurka ayaa labo tiradii laga rabay inay golaha shacabka horkeenaan soo jeedinta xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aan dhammayn sida ku cad qodobka 19 faqradiisa labaad ee dastuurka ku-meel-gaarka Soomaaliya kadib markii ay caddeeyeen xildhibaano badan oo magacyadu ku lifaaqan yihiin mooshinka in lagu been abuurtay oo aysan saxeexin mooshinka xilka qaadista madaxweynaha kuwo kale oo geeriyooday ka hor intii aan mooshinka guddoonka loo gudbin ay ku jiraan saddex iyada oo ay guddoonka golaha shacabku uusan u marin ama hubinin sharci ahaanshaha qabashada mooshinka sida ku cad qodobka 19 faqradiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka ku-meel-gaarka Soomaaliya iyo qodobka 17 faqradiisa 6 ee xoroosaadka golaha shacabka ee ku waajib yeelaya guddoonka inuu hubiyo sharci ahaanshaha mooshinka inta uusan qabanin ka hor mooshinkan oo aad u culus tirada keentana ay muhayay u dhowdahay tiradii uu ku ansaxayay wuxuu u baahnaa hubin siyaada iyo xil iska saarid xoog leh hay-adihii dastuuriga ahaa ee ku shaqada lahaa fulinta iyo maaraynta eedeymaha noocan oo kale ah oo aan dhisnayn sida maxkamaddii dastuuriga ahayd ee arrintan ku shaqada lahayd sida ku cad qodobka 19 faqradiisa labaad ee dastuurka ku-meel-gaarka Soomaaliya qodobkaasina ka afraad ayuu ahaa midda kale moshinku waxa uu hakad geliyey hawlihii qaranka muhiimka u ahaa ee socday sida dhammaystirkii hindisa sharciyeedyadii iyo guddiyadii muhiimka u ahaa howlsacabka hiisiga 2016 dhismaha iyo dhammaystirka maamulada ku-meel-gaarka ah in la dhammaystiro oo dowlad goboleedyadii la dhiso hawl galidii dib u xoreynta iyo sugidda amniga gudaha oo weli socota isfahamkii hay-adaha dastuuriga ah ku hagi lahaayeen hiisiga 2016 oo u baahan xal qaran iyo talo qaran in laga yeesho guddoonka sharafta leh annagoo cuskanayna sababaha aan kor ku soo xusnay oo dhan iyo baahida loo qabo xasilooni siyaasadeed xilligan kala guurka ah waxaan si xushmad iyo qadarin ugu soo gudbinaynaa in si degdeg ah loo laalo mooshinka waxaana sidoo kale ugu baaqaynaa xildhibaanada walaalaha iyo saaxiibadaya ah ee golaha nagula wada jira mas-uuliyiinta ah inay tabashadooda iyo cabashadooda